السلام الله عليكم صاحب يا صلوات meel kasta oo dunida ka joogtaan qofkiina la hadlayay waa walaalkiin daahir xasan aadan waxaa halkan kusoo gudbinayaa koorsadii aad in badan iga codsateen ACCA-da oo aan ka bixin doono introduction yar oo kooban koorsadan sida faahfaahinta ku haysaan ama aad ka warqabtaan intiina danaynayso waa koorso professional ah oo xirfad ah oo xisaabaadkii maaliyadda kasoo jeedo markii lasoo gaabiyo ACCA waxaa loo soo gaabiyaa Association of Chartered Certified Accountants oo ah xirfadlayaasha charteredka ah chartered waa term oo protected ah ACCA-da waxay ka diiwaan gashan tahay dalka Ingiriiska waxaana la aasaasay sanadii 1904 waana urur xisaabeed oo caalami ah ACCA-da waxaa members ka ah oo xubno ka ah 233,000 qiyaas ahaan tirada maalin ka dambeyso way sii kordhaysaa sidoo kale waxaa arday ka ah oo mustaqbalka rajeynaya inay members ama xubin ka noqdaan 536,000 oo arday kuwaas oo kala joogaan adduunka qaybihiisa kala duwan ACCA-da waxay headquarter ku leedahay magaalada London sidoo kalena waxay administrative office ay ku leedahay Glasgow ACCA-da waxay ka shaqeysaa ilaa 110 office oo ku kala yaalo 51 waddan waxaana xiriir ay leeyihiin ilaa 346 approved learning partners oo ah barayaal markaas la hubiyey oo ay ayagu hubiyeen oo shaatiga inay wax bari karaan aqoonta iyo xirfadda ay leeyihiin ay ayaga siiyeen kuwaas oo ku kala yaalo caalamka waddamo kala duwan ACCA-da waxay ka howlgalaan China, India, Pakistan, Africa wadamo badan oo ka mid ah sida Kenya, South Africa waxaa nasiib wanaag ah in waddankeennii hooyo ay iminkan jiraan arday badan oo ama ACCA-da baranayaan ama markaasi dhammeeyeen oo kusoo dhammaysteen waddamo kala duwan laakiin xirfaddii waddankii dib ugu soo celiyeen waana arrin bogaadin mudan in dhalinyaradaas ayaga soo saysanin ayaga maaragtay qarash geliyeen ayaga dadaalkooda ay geliyeen haddana mataqaanaa ay xirfaddii iyo aqoontii iyo waaya-aragnimadii ay waddanka dib ugu soo celiyeen waana waxyaabaha dhalinyarada markasta loo dhaho waxay laf dhabar u yihiin in waddanka uu cagiis ku istaago hore u soconina ACCA-da maxay tahay waa soo sheegnay waxaa isku dayi doonaa in introduction-kan aanan aad idinkugu dheerayn laakiin ujeedadayda waxay ahayd keliya in aan maaragtay idin la wadaago in aan dalabkiina ajiibay aan isku dayi doono inta karaankayga ah inaan idinla wadaago aqoonta markaas iyo waaya-aragnimada aan u leeyahay koorsadan الله المستعان على ما تصفون ACCA-da waxyaabaha sababo ama lagu doortay in la barto oo ay badan yihiin laakiin qayb ka mid ah farshadan ayaad ka eegan kartaa haddii aad u baahato booste kadib ayar u akhriso laakiin waxaan ka mid ah in ay helaysid xirfad la hubo inaad mataqaanaa kasbanaysid shaqo bixiyaasha ugu sarreeya adduunka in maaragtay ay ku dhaxal siinayso inaad fahantid maaliyadda iyo aqoonta ganacsiga waxay ku salaysaa in adduunka meesha joogtid aad ka shaqaysatid waxay ku salaysaa in waxbarasho bilaasha aad heshid waxay ku salaysaa inaad ka mid noqotid ururkan oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 1 milyan barkiis oo arday ah iyo mataqaanaa 1/4 milyan qualified members ah
haddaba ACCada way kala duwan tahay. waa hal jani laakiin janiga waa hayaan, laakiin hayaanka qofba meel buu ka marayaa. qof wuxuu ka marayaa bilow, qof wuxuu ka marayaa dhexdhexaad, qof waa uu dhameeyey, qof wuxuu marayaa imtixaanaadka ayuu dhameeyey. marka hadda wuxuu ku jiraa in uu maaragtay waaya aragnimadii oo experiencegii uu record gareeyo oo wixii uu soo bartay uu maaragtay ku shaqeeyo oo xirfadii iyadoo maaragtay awal imtixaan iyo maaragtay sheeko ah ayuu soo arkay, ayadoo ficil loo bedelayo inuu ku howlgalo oo uu ku qabto aqoontiisii uu dadka ugu adeego oo laga fiiriyo oo laga hubiyo oo maaragtay laga yaabo inuu ku jiro. marka meel kasta oo aad jani uga jirtid, dadka kulligood waxaa ka dhexayso xushmad, kulligood waxay ka tirsan yihiin ururkan dalladda ah ayay ku midaysan yihiin. adduunka meesha rabaan ka joogaan, laakiin markay meel isugu yimaadaan oo ama ACCA students ay yihiin ama ACCA members ay yihiin, waxaa weeye astaan gaar ah, astaan sharafeed gaar ah weeye oo ay isku aqoonsadaan, ay ku sheekaystaan, ay maaragtay waaya aragnimo iyo khibrad ay isku weydaarsadaan. waxaan isku dayeynaa marka in ACCada sideedaba sanadkii every year waxaa la qabtaa 4 exams, 4 exams ayaa la qabtaa. marka 4tan exam waxay kala yihiin waxay isugu jiraan imtixaanaadkii oo dhan. ACCada waxay ka kooban tahay ilaa 16 papers, ilaa 15 paper, 16 paper. it depends. anaga waxaa leeyahay waxay ka kooban tahay 16 papers. muhiim ahan, laakiin qofka ugu badan wuxuu sameeyaa 16 papers. 16 paper marka ayaan kala qaadi doonaa, waxay yihiin ayaan ila wadaagi doonaa. shuruudaha la iskaga baahan yahay waa idin sheegi doonaa. waxay u kala baxaan 16 paper 3 qaybood, 3 parts. 3 parts ay u kala baxaan. marka part koowaad, first part, waxaa weeye waa knowledge ayaa la dhahaa. knowledge waa aqoon, waxaana weeye aas-aaska xisaabaadka. aas-aaska xisaabaadka waxaa ka mid ah financial accountingka, business technology, iyo management accounting. so 3dan paper ayaa foundation levelka ah oo ah knowledgeka. kan waa financial accountingka, waa xisaabaadka maaliyadda aas-aaskeeda lagu bartaa. kan business technology waxaa lagu bartaa entrepreneurship iyo qofka maaragtay noocyada u kala baxaan ganacsiga, waxyaabahaas ayaa lagu bartaa. kanna waa management accounting, waxaa weeye xisaabiyaasha oo markaas taageeraan oo garab siiyaan managementiga. dhammaan 3dan qaybood waxaa la isku dhahaa knowledge level ayaa la isku dhahaa. waxaa weeye waa aqoon, waa aas-aaskii. 2 waxaa jiro skills waxa la dhaho. skillska waxay ka kooban yihiin ilaa 5 papers camal. so 3 baa soo aragnay. so kan waxaa waaye law oo shuruucda ku baranaysid, 5 oo aad ku baranaysid performance management waxay dhahaan, maareynta waxqabadka. 6 oo aad ku baranaysid tax oo ah canshuuraadka. 7 oo aad ku baranaysid financial reporting oo ah tebinta maaliyadda. ilaa maaliyadda markii la tebinayo waa shuruuc ayay leedahay, waxay leedahay habraacyo la iskama tebiyo. marka
wixii markii aad tibinaysid waxaan ma expensive ba, waxaan ma income ba, waxaan ma asset ba, waxaan ma liability ba, wixii waa mataqaanaa waa hadalkaada keliya ma loo qaadanaya laakiin mid kasta waxaa ka jiro sharci iyo shuruuc iyo nidaam iyo habraacyo dhammaan waxaas ayaa la raacayaa marka waan arki doonaa waana baran doonaa mid walba oo ka mid ah sideed waxaa jira waxa la dhaho auditing waa hanti dhowr auditing sagaal financial management maareynta financial management maareynta maaliyadda waxay baan tahay maareynta waxayd maareynta waxqabadka performance management kana waa management financial management marka kow labo saddex afar shan lixdan waa skills waa xirfadaas ayaa baranaysaa knowledge ayaa baranaysaa sidoo kale waxaa jiro waxa la dhaho strategic business strategic level ayaa jiro strategic level dadka inta badan sagaalkaas waa qasab waxaa raaco labo oo ah 10 ilaan sagaal oo soo aragnay so strategic business leader waxa la dhaho oo inta badan waxaa lagu bartaa sidii loola jeedo istaraatiijiyada ganacsiga sida loo fadhiisiyo 11 strategic business reporting course la ayana jirto intaas marka waa inta qasab 11kaas qof kasta oo accountant ah waa 11kaas maado waa inuu ku baasaa waxa uu si dheer marka oo intaas dheer mataqaanaa advanced so that's 12 noqonaysaa advanced performance management 13 advanced audit assurance iyo intaas waa 13ka haddaad dooranaysid labadan optional waaye kuwa kala jiraan sida advanced tax waxaa kaloo jiro advanced financial management marka intaas ayaa jiraan marka qofka wax ku xiranta wuxuu dooranayo haddii adiga dooratid optionalka intaas sameynaysaa ama intaa marka waxay ku xiran tahay wixii aad ka shaqeynaysid haddii aad ka shaqeynaysid canshuuraadka waa inaad kan doorataa haddii aad ka shaqeynaysid stock exchange waa inaad kan doorataa haddii aad auditing ka shaqeynaysid waa inaad kan doorataa haddii aad mataqaanaa maareyn iyo management inaad ka shaqeysatid waa inaad kan doorataa waxbayaan war in ku daalinay saaxiibayaal coursekan ujeedadiisa waxay ahayd keliya introduction inaan maaragtay aan idiin sheego in aan bilownay aan ajiibnay dalabaadka asxaabta fara badan ka yimid oo markaasi soo codsanayeen in aan introduction ka bixino koorsan waxaan idinku hambaleynayaa in uu muuqaalkan noqon doono muuqaalkii koobaad markaasi wadada u furo muuqaalo badan oo aan ku garab istaagayo dhammaan ardayda ama haddeer baranayso maadadan ama danaynaysa inay barato haddii aad markaas doonaysid macluumaad dheeraada inaad ka ogaatid koorsadan waad ila soo xiriiri kartaa waxaan isku dayi doonaa in maaragtay inta karaankiga aan idinka caawiyo wixii markaas macluumaad ah oo aad u baahan tihiin waan idin salaamayaa saaxiibayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa in aad guulihiina aad ka mir dhalisaan in dadaalkiina aad laba jibaartaan in waqtigiina aad ka faa'iidaysataan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkiin daahir xasan aadan oo halkan idinkaga soo
gudbinayo salaan iyo bogaadin.